daawadayaal ummadda reer Somaliland ma ilowsana mana ilaawi doonto inta qof ka nool yahay dilkii dhicii xasuuqii kufsigii dabkii iyo holecii loo soo maray madax banaanida iyo xorriyadda goonistaagga Jamhuuriyadda Somaliland madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu shahiiday 100,000 oo qof waxa uu agoomoobay 10,000 oo carruura waxa asay u qaaday oo raggoodii ay jeclaayeen qudhooda u bixiyeen 100,000 oo haweena waxaan wali midabada curadadoodii qalbiyadooda ka suulin 10,000 iyo 10,000 hooyo oo curadadoodu ay naftoodii iyo dhiigoodiiba ku waayeen qarannimada iyo raadinta madax banaanida Somaliland madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay ku suntan tahay dhiig haliyay waxaana lagu xasuustaa xasuuq ba'an iyo tacadi xusiyo weeyaan wax tagay xasuusta baan guuradeed xadigayo wararkii wixii xoog lay duligay xasuuqi kuma idlaanay xusiyo weeyaan wax tagay xasuusta baan guuradeed xadigayo wararkii wixii xoog lay duligay xasuuqi kuma idlaanay kumaan kun sannadood iyo 100,000 oo sannadood hantidii la soo dhaqayay ee ummadda Somaliland ay lahayd waxay u burbureen oo ay ku doorsadeen xorriyad iyo goonistaag ay ku soo ceshadaan xorriyadoodii iyo madax banaanidoodii foolhalowday 1960kii cadawgii quwadda xoogga lahaa waxa Somaliland ay ka bareeday hadcad oo ay ku bedelatay xinjiro dhiiga si ay xorriyad u hesho qaranka iyo xorriyadda buuxda ee maanta haysataana taasi ay xasuus ugu jirtaa haddaba cadawga Somaliland shaarka uu doono hadba soo xidhee waa inuu dareemo inaanu ku guuleysan doonin riyadiisa waxaana ka horeeya mar walba ummad u dhisan u taagan heegan u ah hareerahana haysa madax banaanidu inaanay halkii 60kii marin mar kale barnaamijyadan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka taxanaha taariikhda oo aanu idin bilaabi doona habeen dambe 10 daqiiqadood saacadda magaalada Hargeysa ka bogo oo ka daawo telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland TV aqli baa ku shahelay harbanay madax bannaan dadkiisina wuu xasladay madax bannaan dadkiisina wuu xasladay waa kanabad ku xasilo
عمتنا إيه بابا إسكالي